madaxweynaha Soomaaliland maanta albaabkiisaan taaganahay ilaahu farash qayr qabay gasi saasan ilaahay ka baryay wasaabka casarka soo galbalay marka soo galo kiyo la garaacayo oo koronto kulsa loogu dhajinayo waqiiqda ayaa la soo dhigaa meelan marayba ismoogi marka sida oo inuu ga dhaqaaqo maama gamo 2 bilood ma gamin hooyo 2 bilood oo iga haysteen maan gamin hooyo farax oo aan maanta kula kulanay hab goobta u dhaxaysa baarlamaanka iyo madaxtooyada ayaa waxay noo sheegtay inuu ka tahriibay wiil ay dhashay isla markaasina lagu haysto dalka Liibiya kaasi oo dhibaato ay u geystaan magafayaasha halkaasi jooga sidoo kalena ay muuqaal ka soo duubaan mararka qaar oo iyadoo soo diraan ama ay ku daawasiiyaan ama muuqaalka araga iyo maqalka isagoo qaylinaya oo ay dhibaato u geysanayaan dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxay ka codsatay inay soo gargaaraan oo ay wax la qabtaan sidoo kale waxay baaq u dirtay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay sheegtay inay maanta albaabkiisa taagan tahay maxaa hooyo ku helay halkan ku keenay hooyo waxa helay inankaas oo iga tahriibay $14 lay haysto marka 3 baa la bixiyay inankaas waa agoon adeer rumana ma haysto dabeeta waxaan isiri balinay ummadda islaamka ku caawiso oo saasa lay haystaa dadaasan hooyo isir hal lagu caawiyo goobtan aad hor joogtay waa madaxtooyadii Soomaaliland madaxtooyada iyada maxaa u timiday madaxtooyada sidaas leeg baan u imi hooyo sidaas leegna inankayga tahriibay layga caawiyo ayaan u imi markaas inankaas magafayga haysta shalay oo dhan buu garaacayay eeyahay waxa soo dirtaa $12,000 warooya balbishaysu waxaan helay kuma sugayo buu baritoole yaa laga waayin meelan marayay ismaan ogeyn halkaas baan iska marmarayay markii dambe la halkan taagantay waa madaxweynihii waa madaxtooyadii ka dhaqaaq dabeetana xaggaas baarlamaanku baan u dhaqaaqay meelan marayay isma ogi markaas baan hooyo wasaabka casarka soo galbalay marka soo galo kiyo la garaacayo oo koronto kulsa loogu dhajinayo waqiiqda ayaa la soo dhigaa meelan marayba isma ogi marka sida oo inuu ga dhaqaaqo maama gamo 2 bilood ma gamin hooyo 2 bilood oo iga haysteen maan gamin habe maalintiina waan socdaa dadka islaamana ehelka la garaa qof $5 laga helo qof $2 laga helo 14 hooyo iga ma gafeynayaan marka hooyo ummadda islaamka waxaan ka baryaa inay soo caawiso suuqa xataa waan qarafayste oo imaka kaas waradiisa shahaadooyinkiisa ma sida inaan yaro maxay tar quraanka dhameeyay buu ha balaayun baa duufsatay halkaas kilalkaan u galaa ma gafaagtina jooga la yiri kaasun baa u sheekeeyay war maadigo maxay tar jaamiciyaad halkan marmaraysa hababeen ba fariyo suulayga ka qaad waligiina muu dhixi jirin bil iyo farisho markan qanaana suuqa iska maraya ayuun buu ilaahay waxaan joogaa Liibiya de markaa waa sida hooyo quraan ku dhameeyay markaa inankaasi quraanka uu dhameeyay kun waayti waa kaasoo inankaas wuxuu shahaadooyinka wuxuu ku baasi jiray eeda maxaad hooyo ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa inay soo caawiyaan meel kasta ay joogaan ummadda muslimiinta inay soo caawiyaan Mukhtaar Nuux Ibraahim Bulsha TV Hargeysa